fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto si aad u hesho sheekooyinkeena. Ha ilaawin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee arka. Sheekadani waxay ku saabsan tahay jacayl. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa la fadhiistay asxaabtiisa qayb ka mid ah, kadibna wuxuu weydiiyey isagoo ka bilaabaya Abuubakar radiyallahu canhu, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Wuxuuna ku jawaabay Abuubakar, 3 baan adduunka ugu jeclahay. Adduunka waxaan ugu jeclahay 1 inaan adiga kula jiro, 2 inaan adiga ku arko, 3 inaan adiga maalkayga oo dhan ugu bixiyo. Kadibna rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey Cumar, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Cumarna wuxuu ku jawaabay, waxaan adduunka ugu jeclahay 3. Wuxuu yiri inaan dadka wanaagga faro, sirba ahaatee, 2 inaan dadka xumaanta ka reebo, jahriba ahaatee, 3 xaqa inaad idhaahdo xaaladda ha qaraaraatee. Kadibna wuxuu kaloo weydiiyey Cismaan, wuxuu yiri Cismaanow, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Cismaanna wuxuu ku jawaabay, 3 baan adduunka ugu jeclahay. 1 inaan quudiyo dadka baahan, 2 inaan salaanta fidiyo, 3 inaan salaada habeenkii markay dadka seexdaan aan tukado. Kadibna rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo weydiiyey Cali bin Abi Taalib, wuxuuna ku yiri Caliyow, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Calina wuxuu ku jawaabay, adduunka waxaan ugu jeclahay 3: 1 martida oo la wanaajiyo, 2 xagaaga oo la soomo, micnaheedu waa xilliga jiilaalka ah oo qorraxda ay aad u kulushahay oo la soomo, 3 cadowga oo seef lagu laayo. Kadibna nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey Abu Dharr al-Ghafaari, wuxuuna ku yiri Abu Dharr, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Abu Dharr wuxuu ku jawaabay, 3 baan adduunka ugu jeclahay: 1 gaajada, 2 jirada, 3 dhimashada. Kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yiri, sabab maxaad 3daas u jeclaatay? Kadib Abu Dharr ayaa wuxuu ku jawaabay, waxaan u jeclaaday gaajada si aan qalbigayga u jilicsanaado, xanuunkana waxaan u jeclaaday si aan dembigayga u yaraado, waxaan dhimashada u jeclaaday inaan Ilaahay la kulmo. Kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri, aniga 3 ayaa la jeclaysiiyey adduunyadiina: 1 carafta, 2 dumarka, 3 waxaa indhahayga laga dhigay salaada inay ku qabowsadaan. Markaas kadib waxaa soo degay Jibriil, wuxuuna yiri, aniga 3 ayaan u jeclahay: fariinta oo ni soo gaarsiiyo, ammaanada aan guto, iyo dadka masaakiinta aan jeclaado. Kadib wuu laabtay xagga samada ayuu aaday, isla markiiba wuu soo laabtay. Mar kale wuxuu yiri, Ilaah baan nabadgelyo idinku salaamay. Wuxuuna yiri, eebe wuxuu ugu jecel yahay adduunyadiina 3: 1 carabka dikriga alla xusa, 2 qalbiga khashuuca, 3 iyo jirka dhibaatada u adkaysta. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa shaydaan weydiiyey su'aalo, wuxuuna ku yiri, waxyahow naclada alla ku dhacday yaa kula fadhiista? Shaydaankii ayaa ku jawaabay, qofka ribada cuna. Wuxuu kaloo weydiiyey mar labaad, waa ayo saaxiibkaaga? Wuxuuna ku yiri, qofka sinaysta. Mar kale wuxuu weydiiyey, yaa kula seexda? Wuxuuna ku jawaabay, qofka maandooriyaha caba. Wuxuu kaloo weydiiyey mar labaad, waa ayo martidaada? Wuxuuna ku jawaabay, tuuga. Waxaa kaloo la weydiiyey, waa ayo rasuulkaaga? Wuxuu ku jawaabay, sixirowga. Wuxuu weydiiyey, waa ayo kan indhahaaga ay ku qabowsadaan? Wuxuuna ku jawaabay, kan xaaskiisa ku dhaarfura oo dhaha, haddii saas aan samaynin, xaaskayga ayaa iga furanta. Wuxuu kaloo weydiiyey, waa ayo xabiibkaaga? Wuxuu ku jawaabay, taariku salaadka ayaa xabiibkayga ah, oo weliba kan jimcaha ay ka tagto. Mar kale ayuu weydiiyey su'aalo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna yiri, maxaa dhabarka kaa jabiya? Wuxuu ku jawaabay, dananka fardaha.
markay jihaadka ku jiraan. Wuxuu yidhi, maxaa jirkaaga dubaaxiya oo ka jaraysiiya? Wuxuu ku yidhi, ruuxa toobadkeenka badan. Wuxuu kaloo weydiiyey, maxaa beerka kaa jilciya oo kaa bisleeya? Wuxuuna ku jawaabay shaydaankii, ruuxa istikfaarta badan habeenkii iyo dharaartii. Wuxuu kaloo weydiiyey, maxaa wejigaaga daboola oo madoobeeya? Wuxuu yidhi, sadaqada sirta ah. Wuxuu yidhi, maxaa indhahaaga madoobeeya? Wuxuu yidhi, salaada subax.